degdega daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa maanta howlgalladii ugu ballaarnaa waxa ay ka sameeyeen afafka hore ee magaalada Masaajid Cali Guduud iyo gudaha magaaladaba nala daawada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo difaacidii ugu horeeyay ee Masaajid Cali Guduud kala kacay kooxaha qawaarijta ah ee Al-Shabaab. saad aragteenba waa geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta howlgalkii ugu adkaa ka sameeyay degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dagaal saacado badan qaatay oo bilowday saakay 10kii subaxnimo ilaa galabnimadii soo gaaray waxa ay ku guuleysteen in gudaha magaalada Masaajid Cali Guduud iyo banaankeedaba ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ah ee Al-Shabaab. saad muuqaalada ku arkaysaanba waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gudaha ugu sii daatay degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen difaacidii ugu horeeyay ee kooxda nabadiidka ah inay kala kacaan iyadoona ciidamadu haatan ay idin la hadlayo ee gudaha Masaajid Cali Guduud ay u galeen. waxayna ciidanku sidoo kale haatan gudaha magaalada ay ka wadaan howlgalladii ugu xoogganaa oo lagu baaraya magaalada. ciidamada ayaa gudaha magaalada ka baaraya miinooyin nabadiidku ay ku aaseen gudaha magaalada. waxayna ciidanku haatan ay idin la hadlayo ay ku sii raad joogaan firxadka kooxdii ka baxday degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalka aamusan ku qaaday Masaajid Cali Guduud ayaa waxa ay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka sifeeyaan kooxda qawaarijta ah ee Al-Shabaab. ciidanka ayaa la arkayay iyaga oo rasaas ooda uga qaadayay difaacidii kooxda nabadiidka. muuqaal inaga soo gaaray furmaha hore ee dagaalka ayaan si hordhaca idinkugu baahinay waana geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta dagaalka ba'an la galay kooxda qawaarijta ah ee Al-Shabaab. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalkii maanta oo ahaa dagaal aad u culus. waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dagaal muddo saacado qaatay kadib ay ku guuleysteen inay gudaha u galaan degmada Masaajid Cali Guduud oo maalmahanba ciidanku ay hareereeyeen iyadoona sidoo kale ciidanku ay haatan ku sii raad joogaan qabashada magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. cutubyadii ugu badnaa ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhawaan tababar lagu soo xiray Turkisom ayaa waxa ay ka qayb qaateen dagaalkii ugu cuslaa ee maanta ka dhacay degmada Masaajid Cali Guduud. waxayna ciidamadu ku guuleysteen inay gudaha u galaan ayna ka sifeeyaan kooxdii qawaarijta ah ee Al-Shabaab. saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in dhowr gaari oo nooca dagaalka ah laga gubay nabadiidka. waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen in aaga magaalada iyo gudaheedaba ay ka sifeeyaan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. saraakiisha ayaa sidoo kale waxay inoo xaqiijiyeen in maalmahanba ay magaaladu isweer ay ka hayeen saad muuqaaladii ugu dambeeyay ee wararkeena aad ku aragteen. waxayna ciidanku ay maanta ku guuleysteen inay gudaha u galaan magaalada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgalkan oo ahaa howlgal aad u xoogan oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta ka sameeyeen gudaha magaalada iyo banaankeedaba ayaa waxa ay ku guuleysteen inay banaanka uga saaraan kooxdii qawaarijta ah ee Al-Shabaab. 52 dhagar qabo oo ka tirsan argagixisada ayaa dagaalkii maanta ka dhacay Masaajid Cali Guduud looga dilay waxaana looga gubay 4 gaari oo nooca dagaalka ah iyadoona ciidanku ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan horjoogayaal dhaawac ah oo ka tirsan qawaarijta Al-Shabaab. ciidanka ayaa sidoo kale waxa ay haatan ay la hadlayo ay ku sii siqayaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona saacadaha la soo socda la filayo in ciidanku ay degmadaasi gacanta ku dhigaan. abaabulkii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha qawaarijta ah ee Al-Shabaab ayaa haatan waxa uu ka soconayaa tuulooyin deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona ciidankii ugu badnaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqeen deegaanadaasi. waxayna ciidanku ay haatanba dhaqaaqadii ugu xoogganaa ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe. xilligan oo habeena saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay inay ku sii siqayaan goobo kale oo hor laho lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan nabadiidka Al-Shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee haatan dhowr jiha ay ka weerareen magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qabashada maanta ciidamadu ay qabteen Masaajid Cali Guduud waxa ay ka dhigan tahay guul weyn oo soo hoyatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka. waxayna ciidanka maalmihii ugu dambeeyay ay abaabul xoogan ay ka wadeen degmada Masaajid Cali Guduud iyo tuulooyin ku dhow. sidoo kale ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed
ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen deegaanada kale ee lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in deegaano dhowr ah ay ka sifeeyaan kooxda nabaddiidka ah iyadoona ciidanku haatan ay gafureegayaan goobihii howlgallada ugu cuslaa ay ka sameeyeen oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Shabeellaha Dhexe waxa ay qayb ka tahay goobaha sida weyn ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta uga sameeyeen howlgalladii lagu baacsanayay kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab. saad muuqaaladaba aad ku aragteen ciidanka ayaa waxa ay dhowr jaha ay ka weerareen masaajid Cali Guduud iyo deegaano ku dhow waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhowr jaho magaaladaasi ay duulaan culus kaga qaadeen kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee haatan ay kaabiga ku hayaan magaalada aadan yabaal waxayna ciidanku haatan ku siisiqayaan goobo kale oo hor loo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab. guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ciidanku saacadihii ugu dambeeyay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku guuleysteen in tuulooyin iyo deegaano horle ay ka sifeeyaan nabaddiidka al-shabaab. markana duqeyntii ugu cuslayd ee dhanka cirka ah ayaa waxaa lala beegsaday magaalada Bu'aale iyo Jilib halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. labadan magaalo waxa gacanta ku haya nabaddiidka al-shabaab iyadoona ciidanku ama dowladda Soomaaliya dowladaha ka taageera dhanka cirka ay howlgalladii ugu cuslaa oo dhanka cirka ay ka sameeyeen degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe waxayna halkaasi ku weerareen horjoogayaal ku shirsanaa oo ka tirsan nabaddiidka al-shabaab iyadoona 5 horjoogo oo horjoogayaal ajnabi ay ku jiraan halkaasi lagu dilay. howlgalkan waxaa iska kaashaday ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana halkaasi lagu bartilmaameeyay guri weyn ay ku shirayeen horjoogayaal ajnabi iyo Soomaali isugu jira oo ka wada tirsan kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. wixii ku soo kordhay duqeyntaasi wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan. markana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalladii ugu cuslaa waxa ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Hiiraan. wararka aynu ku helayno gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidanku ay dhowr jaha ay ka weerareen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab. deegaanada ciidanku ay weerareen waxaa ka mid ah Teedaan, Moqokori iyo Maxaas tuulooyin hoostaga halkaas ay ku dhuumaaleysanayaan kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan oo aan ul buuro leeyahay waxay dagaal adag kula galeen kooxaha nabaddiidka ah ee al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaas ay ka wadaan dhaqaaqyadii ugu xoogganaa ee ka dhana kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab. gobolka Hiiraan waxaa si xawli uga soconaya abaabul dagaal oo ka dhana kooxaha nabaddiidka ah ee al-shabaab iyadoona ciidanku dhaqaaqyadii ugu xoogganaa ay ka wadaan magaalooyinka Maxaas iyo Moqokori tuulooyin hoos yimaada halkaas ay ku dhuumaaleysanayaan argagixisada al-shabaab. sidoo kale ceel gorof Saktiir iyo deegaano ku dhow ay ciidamadu ka wadaan howlgalladii ugu cuslaa iyadoona ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay haatan abaabulkii ugu xoogganaa ay ka wadaan deegaanka Cali Ganay oo hoos yimaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxayna halkaasi ka wadaan dhaqaaqyadii ugu xoogganaa ee gobolka Hiiraan looga sifeynayo kooxaha nabaddiidka ah ee al-shabaab. gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada xooggan waxayna ciidanka maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen gulufyo kalena kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka aad u tiro badan ayaa dhowr jaha waxa ay kaga dhaqaaqeen tuulooyin hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxayna ciidanku weerareen goobo nabaddiidku ay ku lahaayeen fadhiisimo xooggan. wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in dhaqaaqyadii ugu xoogganaa ay haatan ay ka soconayaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyadoona saraakiisha qaybta 27aad ay inuu xaqiijiyeen in saacadaha soo socda ay gacanta ku dhigi doonaan magaalooyin muhiim ah oo ay ku dhuumaaleysanayeen kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab. gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhowr jaha ay ka weerareen tuulooyin hoostaga deegaanka Teedaan halkaas oo howlgalladii ugu cuslaa maanta laga sameeyay. markana hadaynu aadna deegaano ka tirsan gobolada Baay iyo Boqol waxaa si xawli uga soconaya halkaasi howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalladii ugu xoogganaa waxa ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca deegaanka Goof Guduud waxayna ciidanku halkaasi ku baacsanayaan koox ka tirsan khawaarijta al-shabaab. xudur iyo tuulooyin hoostaga ayaa ka mid ah
ama degmada xudur tuulooyin hoostaga ayaa kamid a goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uga wadaan abaabulka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee al-shabaab iyadoona ciidanku ay dhowr jaha ay ka weerareen tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolada baay iyo bakool wixii kusoo kordha howlgallada culus ay wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan fadlan hadduu muuqaalka kusoo gaaro meel dheer inoo gaarsiiyey janalkana sabskrayb inoo saar waa mahadsantihiin